nuclear-ka qaraxaasoo aad u ballaaran kaasoo 10 milyan dhalin karayo qaraxyo aad u ballaaran oo baaxadiisa aan la soo koobi karin 1939kii xilligaasoo laga dareemayay Yurub dagaalkii labaad ee dunida ayaa waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo hoose oo ay wadeen Jarmalku kuwaas oo ay doonayaan inay ku samaystaan hubka halista ah ee wax gumaado kooxaha saynis yahano reer Germany ayaa waxay si qarsoodi ah Mareykanka ugu direen warqadaas oo ay ku qorneyd in ay jiraan gaar ahaan Albert Einstein ayaa u diray warqadaas oo ku qorneyd in ay Jarmalku ku howlan yihiin samaysashada qunbulad nuclear ah taas oo madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi joogay ku abuuray welwel isla markaana bilaabay howlgal ama qorshe cusub oo kaga hortagayo sidii uu asna u samaysan lahaa bamba nuclear ah xilliga kadib waxa uu dejiyay isugu yeerayna kooxa reer Mareykan ahaa waxaana qalinka ku duuga mashruucii Manhattan Project kaasoo saynis yahanadii reer Mareykan ay bilaabeen waliba gaar ahaan kuwii reer physics-ka yaqaanay sidii ay u dejin lahaayeen qorshihii lagu howlgelin lahaa waxaana loo xilsaaray Roberto Oppenheimer oo Roberto ayaa qorshahaasi isla markiiba xaqiijiyay daraasad qoto dheerna ku sameeyay maadooyinka laga maarmaanka waa in la sameeyo qunbulad nuclear ah madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi ayaa farxad awgeed markii ay xaqiijiyeen saynis yahanadu in ay soo saareen 3 qunbuladood oo nuclear ah kuwaas oo ay xadigoodu gaarsiisan tahay malaayiin qarax ayaa bilaabay tijaabinta waxaana lagu tijaabiyay saxaraha gobolka New Mexico iyadoo loo bixiyay taasi Triton qaraxaasi ayaa baaxadiisa laga dareemay dalka Mareykanka isla markaana waxa uu noqday mid hirgalo xilliga ka bacdi Mareykanku waxay u jihaysteen qorshahoodii labaad isla markaana ahaa si ay ugu duulaan dalkaasi Japan oo caqabadii ku hayay dhibaatooyin fara badan iyo hanjabaado culays badan ka soo wajahayay Mareykanka Jarmalka ayaa wuxuu haystay maadooyin khatar ah oo biologiga isla markaana keeni karaya daacun iyo waxyaabo kale Mareykanka ayaa waxa uu ku garaacay gantaalaha nuclear-ka dalkaasi ee Jarmalka gaar ahaan Hiroshima iyo Nagasaki ku garaacistaas ayaa lagu dhuftay labada qunbuladoodna waxayna sababeen qarax xaddi aad u fara badan ah iyo in ay hawada ku sii daayaan maadooyinka sunka ee radioactive-ka taas oo keentay in ay 100,000 oo qof ay naf waayaan Roberto wax laga weydiiyay arintaasi ayaa ka muujiyay inuu aad uga xun yahay isla markaana ay qasaaraha ay geysatay ee tahay qasaare aad u weyn uu dareemayay arkayna dad oynayay oo reer Japan ah isla markaana qaar kale oo murugoonayay waxaana uu ku tilmaamay arintaasi mid walaac badan asaga shakhsiyadiisa ku abuurtay wuxuuna muujiyay dareen aad u ballaaran oo bini'aadanimo taasoo ka turjumayso waxa uu sameeyay iyo xadigiisa madaxweynihii dalka Mareykanka ee xilligaas madaxweynihii dalka Mareykanka ee 33aad Harry Truman ayaa qalinka ku duugay isla markaana bixiyay amarkii ee duqeyntii Japan lagu geysanayay adeegsiga hubka nuclear-ka walow ay jireen cadaadisyo iyo culaysyo badan oo ay dalka Mareykanka ka wajahayeen maraakiibta dalkaasi Japan leeyahay haddana madaxweynahaas ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee adeegsada gantaalahaasi cusub ama qunbuladaha nuclear-ka kaasoo qasaarihii ugu fara badnaa ee dunida ka dhaco waqti kooban ka abuuray dalkaasi ayaa noqday gebi ahaanba waliba gaar ahaan Hiroshima iyo Nagasaki kuwa burbursan isla markaana ay jiraan dadkii u birmaday ayaa waxay xaqiijinayeen inay arkayeen dad ayagoo dhan angagay ama qolbabay dad gubtay dad kaadi dhiiga dhigayo iyo dad ay dhacanadu ka socdaan qaybaha kala duwan ee jirkoodu taasina waxaa keenay maadada shooca radioactive-ka taasoo ah maado halis badan isla markaana iftiinka faraha badan ee radioactive-ku uu leeyahay ama shoocaasi uu waxyeello badan u geysan karaya qaybaha unugyada jirka bini'aadanka gaar ahaan qaybaha neefmareennada iyo saableyda jirka dalka Mareykanka ayaa xilligaasi ka bacdi Jarmalkii iyo wadamadii kale ee dagaalka dunida ayaa gabi ahaanba istaagay iyagoo halkaasi ku soo afjarmay dagaalkii labaad ee dunida nuclear-ka ayaa waxa uu ka kooban yahay atomiskaasi ayaa u sii kala baxaya nucleusyo kuwaasoo ah protons neutrons and electrons falgalka ka dhaxeeya maadooyinkaasi ayaa waxay sameeyaan qarax xaddi aad u fara badan ah kaas oo sababa
in uu burburiyo gebi ahaanba qaybaha ku hareeraysan aaggaasi isagoo ku dilayo 3 qaybood oo kale ah ololka iyo xawliga dabaysha iyo marka ugu dambayso sunta radioactive-ka taas oo keenayso dhibaatooyin fara badan. sanadii 1954 ayaa midowgii Soviet waxa uu qarxiyay bambo hydrogen ah. bambadaas ayaa dunidu ku soo baraarugtay waxyeelada iyo qaraxa ka dhalatay xaddigeeda taas oo aad u fara badan isla markaana tii Hiroshima oo ka weyneed xaddi aad uga fara badan.